qof walba waanan salaamin waxay ku salaaman tahay masiirka iyo mas'uuliyadda ay halkan ku fadhido ugu horeyntii aniga oo ku hadlaaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo dhammaan madaxda dawlad goboleedyada iyo golaha wasiirada waxaan ka mahad celinayaa cashadan marti sharafka ah waan ka gudoomiye waan ka gudoonay gobolka Banaadir intii soo qaban qaabisana waa u mahad celinaynaa inta ka sokow rag badan ayaa iga horeeyay oo hadalkii waa la yiri waliba gabdho badan ayaa naga sii horeeyay oo ay ka mid tahay Jawaahir Baarqab kaalay bal adigu Jawaahir ka daba hadal caawa waxay tusaale ka tahay saddex shay kow sida la sheegay horumarka tartiibka ah laakiin sharaftu ay ku dheehan tahay oo ay u muuqato ummadda Soomaaliyeed inay ku tallaabsanayso labo soo dhawaashaha dadka gobolka Banaadir iyo dawlad goboleedyada iyo saddex in madaxda dawlad goboleedyadu iyagu ay ka warbixinayaan hanaanka dawladnimo iyo meesha qaranku u socdo waa iftiinka aan caawa halkan ku fadhinayada lafteeda waxaan isugu nimid inaan ka hadalno arrimo masiir u ah ummadda Soomaaliyeed ajendayaashii aan ka hadalnay markii aan isu nimid waxa ka hadlay walaalahay laakiin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego sanadka 2018 waa sanad muhiim u ah dalka Soomaaliyeed waxaan kulligiin markaa idinka codsanaynaa inaad gacan ugu siisaan inaan ka wada hadalno oo ka heshiino sida ummadda Soomaaliyeed ayagu kaaftoomi lahayd tuugsiga uga bixi lahayd gaajada una soo saaran lahayd khayraadkooda waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan in la dhammaystiro dastuurka qabyada ummadda Soomaaliyeed waxaan kala codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan inaan go'aan ka gaarno nooca doorasho oo dalku yeelanayo waxaan ka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan dawlad noocee ah ayuu dalku yeelanayo waxaan ka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan cadaalad noocee ah oo dalku heshiis ku yahay aan yeelanaynaa waxaan ka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan dal noocee ah ayaad rabtaan inaan yeelano xiriir noocee ah ayaad rabtaan dalka dunida ku xeeran inaan la yeelano su'aalo waaweyn oo sanado badan ay qaadanayso in laga jawaabo ayaa hor taagan ummadda Soomaaliyeed 2018 iyo 2019 haddii aan 2018 su'aalahaas aad ku adag la isweydiin 2020 ma gaarayna meesha aan joogno waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ka soo baxay shirka uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ugu horeeyay in la bilaabay in la aqbalo inaan ka heshiino sidii loo qaybsan lahaa khayraadka oo lagu bilaabay kalluumaysiga in loo ballamay 28 Maarso in la isugu yimaado Baydhabo oo laga heshiiyo khayraadka intiisa kale sidaan ula soo bixi lahayn in lagu heshiiyo marka la isugu yimaado waqtigaas isaga doorashada noocee ah ayuu dalku qaadanaya laakiin waxa la isla gartay oo aan rabaa inaan idinku bishaareeyo haddii Ilaahay nagu guuleeyo inaan ka jawaabno su'aalahaas adag in awoodda loo soo celiyo shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxay tahay madaxda qaranku waxay isla garteen inaan gelino xoog iyo maskax walba oo aan awoodno si dalka loo gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal cod sidaad aragteen communiqueegii ka soo baxay shirkii madaxdu isugu yimaadeen ayaa lagu go'aamiyay in laga bilaabo maanta aan ka shaqeyno in dalka la gaarsiiyo doorasho su'aalahaas waaweyn oo hor yaalla ummadda Soomaaliyeed oo madaxdii igu horeysay ay ka hadleen inaan diyaar u nahay inaan u jawaabno waxaan soo jeedinayaa laba shay kaliya qof walba oo Soomaaliyeed oo damiir leh oo doonaya inuu arko tilmaamihii madaxdu halkan ay ka muujiyeen oo ah inaan ku noqono
ka wanaagsanaano sidii ay muqdisho ahaan jirtay iyo dalka intiisa kale gacanna sii labo qofkii aan gacanna siinayn oo aan rabin inuu gacanna siiyo waxaan ka codsanaynaa inaadan dhibaateyn waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi